الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay dhowr kelmadood oo degdeg ah inaan halkan ku duubo oo igu khasabtay inaan live-kan soo galo. waayadan sidaa ogtihiin live maanan gelin mana galo baryahan qoraalka igaga filan baan isiraahdaa, laakiin tan way ka fursan weyday. afar qodob baan jeclahay inaan kusoo koobo warkayga. qodobka koowaad waxa weeye xaaladda xanuunka badan ee dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed ka dhex socota, dagaalada ka cusboonaya gobollo badan oo dalka ka mid ah iyo meelo badan oo dalka ka mid ah oo holcaya, oo dhiig dad Soomaaliyeed oo muslimiina uu ku daadanayo, oo labada dhinacba dad walaalo ah, qaraabo ah, tol ah, deegaan wada ah, xigaalo iyo xidid wada ah, isku masiir ah, isku diin ah, meelna aan kala tegi karin. ilaahay subxaanahu wa tacaala isku qoray oo isku meel dhigay, oo haddana dhiigoodii daadinaya xaaraanta ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah dhiigooda iyo maalkooda iyo cirdigooda xaaraan buu ka dhigay. ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. qofkii muslima oo qof muslima seef kala hortagana waxa weeye labaduba waa fi naar, sida nebigu calayhi salaam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi naar. marka dagaaladan hadda masalan meeshan la yiraahdo qorilugud oo qabaa'il Soomaaliya oo wada dego oo xigta ah, oo gaar ahaan qabaa'ilkan dhulbahante iyo habar jeclo, gobolada dhexe meel ceel garas iyo u dhow Dhuusamareeb iyo u dhow iyadan dagaalo ka qarxay aan ujeeday oo dad lagu laayay, xagga Gedo iyo Luuq iyo waan arkaynay. meelo kaleeto oo ka mid ah dalka waa sidaas oo kale. waxaan leenahay dad iyo muslimiinta ah oo Soomaalida ah, kelimadii Ilaahay kulligiin kitaabka Ilaahay baa haysataan, diinta islaamkana waa ku wada abtirsataan. ilaa goorma ayaa dhiigan laga waantoobaya? ilaa goorma? aakhiradeenni iyo adduunkeenniiba wuu gaasiray dagaaladan iyo dhiigan la daadinayo ee xaq darrada ah. adduunkana dadkii wuu naga reeb, oo asaageen wuu naga reeb, oo dowladnimo waa noo diiday, oo dadnimo waa noo diiday, oo adduunka waxaan ka nahay ummad mambuud ah oo meel walba albaabada laga xirto oo laga cayriyaa kana. runtu saas weeye. warqadaha aan adduunka ku marno oo dadku isku aqoonsado iridaha lala ka celiyaa. yaa weeye gobolka ama dadka meel ka dhaqdhaqaaqa oo warqad Soomaalinimo ah ku dhaqdhaqaaqa? waa kuma? waa gobolkee? waa dowladee? waa Soomaalidee? Soomaalida aqoonsi Soomaaliyeed adduunka ku marta waa tee? adduunku waxbuu isku aqoonsadaa. sharafteenni saasay horta u dhacday. sharafteenni saasay u dhacday haddaan ognahay iyo haddaanan ogeyn. dadka siyaasiyiinta ah oo quudka ka raadiya inay ummaddan muslimka ah ee walaalaha ah ee qaraabada ah ee xigtada iyo xigaalada ah isku diraan, oo quudka ka raadiya halkaa, oo damacu halkaa ka galay iyo kursi halkaa ka galayna waa dad iimaan la weeye. dad iimaan la weeye, dad damiir la weeye, dad dadnimo la weeye. hataa dadnimo xataa ma laha. adduunka ay ku hor istaagaan, adduunka ku hormaraan. nin kasta oo siyaasiya oo dalkiisii Soomaaliyeed iyo dadkiisii Soomaaliyeed og xaaladda ay adduunka ka taagan yihiin maanta, tii aakhiro meelaha ii taale, oo isku diraya oo dhiigooda ka macaashaya, oo berri intuu diyaarad raaco ku raacaya baasaboor ummad kale ku raacaya. sharaftee buu leeyahay? dadnimadee buu leeyahay? ma xishoodo miyaa? baasaboor Orobiyaanu wataa, ma wato baasaboor Soomaaliya adduunku ma maro. waxaan ognahay siyaasiyiinta Soomaalida ama diblomatic ha wataan ama baasaboor caadi ha wataan, adduunku sharaf uma hayo. baasaboorradooda safaaradaha laga soo ceyriyaa, waa laga soo tuuraa, wejigaa lagaga dhiftaa. kuwooda ugu mas'uuliyad sarreeya ayaa wejiga lagaga dhiftaa.
la yiraahdo fiisa lagu siin maayo oo sharaf ma lihid oo magac ma lihid oo dad ma tihid naga tag na dhaaf waxba ku siin mayno markaas wuxuu miciin bida ummad kaleeto iyadu wax dhisatay oo magac dhisatay oo dawlad dhisatay oo dadnimo dhisatay adduunka ku dhisatay gaal iyo muslim waxay tahayba taasuu inta miciin bido teeda iyo aqoonsigeeda adduunka ku maraa adduunka saasaan ka nahay markuu dalkii ku soo noqdana dadkiisibu isku diraya meeshuu ka dhisi lahaa dawladnimo iyo dadnimo iyo ummadnimo marka ummad yahay Soomaaliyeed aqligu ha soo noqdo dadka waxa la yiri aqliga waa laga qaadaa waqtiyada qaarkood markay iskhilaafayaan oo qabiil isku khilaafaan oo isu dilaan aqligoodu ma joogo dhalika biannahum qawmun la ya'qiluun dadkaasu dad aqligoodu joogo maaha aqligu wuu maqan yahay dad maslaxadooda iyo dantooda iyo dadnimadooda iyo dawladnimada aan garan karin dantooda u midoobi karin ee isku dilaya ma aha dad aqligoodu joogo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xoogaa yar waxay isku qabteen ghanaa'imtii badar sidii loo qaybin lahaa ama laga yeeli lahaa markay xoogaada khilaafka ay meesha iyo isqabqabsiga ay u ka dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala jibriil buu soo diray qur'aan buu 7 samo korkeeda ka soo dejiyay nabi maxamed calayhi salaam lagu soo jeeday yas'alunaka 'anil anfal waxay ku weydiinayaan oo isku qabqabsanayaan qanaa'imtii bay isku qabsanayaan qul al anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka qaaday arrintii oo dhan waa laga qaaday wixii isku haysteen waa laga dhex qaaday maba ku leeyihiin baa leeyahay idinka waxa ku leeyihiin malaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa ka talinaya idinka maxaa waajibkiinu yahay idinku ilaahay ka baqa oo dhexdiina islaaxiya oo heshiya dhexdiina ka heshiya fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum ayadaas baan dhigaheena ku celcelinaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala wa anahu uga dhigo waxaan u jeeday rag salaadiina oo aan garanayo oo aan aqli iyo diin iyo garasho ku tuhmayo gaar ahaan dagaaladii maalmahan dhaweyd 100 ka dhalinyarada ah ay ku dhinteen inta gaaraysa ee qori lugud ka dhacday rag salaadiina oo aan aqaano oo reer burca oo salaadiinta habar jecla oo baaqiye jeedina oo aan ka aqaano rag aan wanaag ku aqaano ilaa iyo 30 sano ku dhawaad aan garanayo oo burca igu soo dhaway oo guryahooda igu soo dhaway oo diintooda iyo dagaaladii hore oo ka dhacay burco oo haddii qabiil wax taro beesha reer way wada degta reer sheekh isxaaq burca kaligeed wada degta dagaaladeeda uu 90yada dhex maray oo magaalada laga kala guuray waxaan tagay magaalada oo bisadaha kaliya ka dhaqdhaqaaqayaan magaalada burco oo bisadaha kaliya ay ka dhaqdhaqaaqayaan oo aan cidi ku noolayn baan tagay iyadoo camiran oo lagu soo wada noqday oo la heshiiyeyna oo markii labada reerood ka kala guureen lagu soo noqday oo camiranna waan tagay waa meel wanaag iyo khayr iyo diin iyo raganimo iyo dadnimo ya aan ku aqaano way suldaan maxamuud guuleed baan u jeeday oo hadlaya suldaan maxamuud xaaji xuseen baan u jeeday oo hadlaya suldaan yuusuf baan u jeeday oo hadlaya cabdi cawad iyo rag la mid ah oo salaadiin oo qadarin oo Allah dhiigayaga iyo dadka yagaan difaacanayna dadkii dagaalamayay waa fasaxay xagee loo fasaxay qarnigeen joognaa waqtigeen joognaa maxaa la kala heli dadkan waxaan kala dhigaystay garaad soofe oo leh xagga kuwa ku dhintay iyo xagga kuwa ku dhintay labadaba qaraaban la ahay adeer iyo abti baan waana ka xumaa labada qolona dhinaca garaadada iyo dhinaca salaadiinta waxay leeyihiin qolo walba diinta xaq noo siisay inaanu dhiigayaga iyo dalkayaga iyo maalkayaga iyo cirdigayga aan difaacano oo qolo walba haddii difaacta yaa weerara marka waa yaaba yaa weerara caqligii aaway maxaase la kala qaadi maxaa la kala heli dadkan ilaahay baa isku xukumay weligoodna qarniyaal iyo 100 sano way wada deganaan doonaan waxa kalena waa laga tegayaa war caqligu ha soo noqdo oo diintu ha soo noqoto oo iimaanku ha soo noqdo
oo siyaasiyiin iyo dad aan يعني ديجان كم عاش الصومالية صدّن سنة كبدن أفرتن سنة كم عاش ديج الصومالي إلى والدك الدولة دمدي الصوماليات للردي أو حبشلو تجي أو هم كلا السوقات أو إيادا الصومالي اللي يسكت لي أو شرفت هذه يجوب النمدي دي دول كل الجلية أو حبشي أي كحكمتي أو كتلسي إلى مالنكاس بينا كوا أنتو بهين وحان صعدا تاس كلمة داس dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo dabkaas ku hulcayo waxa la ilaahay ka baqa oo sida quraanku uu yiri war ilaahay ka baqa dad aqli leh oo diin leh oo iimaan leh baatihiin dad garasho leh baatihiin adduunku maanta meeshu marayo qarniga 21aad waad u jeedaan Soomaali meeshay marayso waad u jeedaan dhulka lagu dagaalamayo isbitaal male oo jid male oo iskuul male oo meel la maro male oo shaqo male oo waxya baad iyo maxaan ku sheegaa biyo male boqolaal ruux oo dad muslimiin ah oo dhalinyaro ah baana u go'aya aqligaas meeshu ka shaqeeya adduunka jira waan inuu ku qoslay udxuu ka noqonay adduunka waxaan ka noqonay wax lagu qoslee tii diintana waa inoo dheer tahay aan kan ilaahay ka waantoon ka noqono taas waa qodobka labaad oo aan jeclahay وحوي دولة الصومالية مدحوينها هذا مقع الصوماليات حنبارسن مدحوين حسن الشيخ محمود إلهي سبحانه وتعالى توفيق ذا لما أنت ينبهي نصي لكن توفيق ذا وح مهمة إلهي ندتك وحكومة بادية إيمان كوذا يهديهم ربهم بإيمانهم ذاتك إيمان كوذا daacadnimadooda iyo qalbigooda ayaa ilaahay ku hogaamiya madaxweynaha hadda dibaddu jira dalkana meelo badan saanay u hulcayaan dadkii kale dhexgeli lahaa oo heshiisiin lahaa oo isu keeni lahaa oo iyaga ayaa birrito cudud iyo xoog u noqonaya ilaashan lahaa waa dawladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaheeda hogaamiyaheeda weeye iyada oo dabku saa u hulcayo dibadaha madaxweynuhu inuu aado iyaduba waa shaqo dibaduhu ma lihin shaqo maaha laakiin waxa kale muhiimsan shaqada gudaha ee inaga iyo dawladnimadeena iyo dadnimadeena iyo wadajirkeena iyo sharafteena taasa adduunku inagu sharfaa oo inagu yaqaan hawlaha dibadaha dad badan baa soo qaban kara oo la shaqeeya dawladda la shaqeeya madaxweynaha waxay dadkan oo kale hadda in ciidamada la kala dhex dhigo oo la kala dhex galo oo la kala joojiyo oo xataa madaxweynuhu meelaha u safro oo meel walba tago oo dabkan uu ka holciyo istaago oo kala joojiyo oo dadkan isu keeno hogaamiyuhu waa nabadoon hogaamiyuhu waa dadka oo dhan la xiriire isu keene isku duwe isku wade وحالي ما من نبي إلا وقد رعى الغنم بوي النبي عليه الصلاة والسلام مجر النبي إلا أرجو سوء عليه علماء واسوديا محل أرجو سوء عليه أرجو وحوي ما هسيد الجيلة ما هسيد اللقطة أرجو الضعيف ويريه ودكتي وتبريريه هدي مدي جبته لقطة كجبته ري هدي لقطة كجبته والروتين يسوى هريسة وحال ربا إن لجور قبو ولا صوريه haddii mid iyadoo geed caleenta ka cunaysa ay madaxa la gasho waxa laga yaabaa madaxa inaanay kala bixi karin daciifnimada tabardarreed waxa la rabaa inuu ka bixiyo waxa la rabaa inuu isu celiyo waxa la rabaa kuwa ordaya iyo kuwa gadaal jira inuu isu celiyo waxa la yiri marka culimadu tiri nabiyadu waxa ariga ay u ilaaliyeen waxa weeye hogaamintay ku bartaan hogaaminta ummad siday isugu wadaan ummad siday isugu celceliyaan kooda dheereynaya iyo kooda gaabinaya isugu celceliyaan oo isugu dhex wadaan ayay ku bartaan hadii dawladnimadu waxay ku xoogsataa inta aad dadkaaga aqoonsiga ka hesho oo qabuulka ka hesho oo ogolaanshaha ka hesho oo ixtiraamka ka hesho oo qadarinta ka hesho اعتراف waxaad heshaa adduunku ku ictiraafo oo ku garto markaad adigu dadkaaga garato markaad dadkaaga u adeegto markaad dadkaaga dar yeesho markaad dadkaaga biyo macaan cabaan oo nadiifa
markay caafimaad ku seexdaan markay nabadgelyo ku seexdaan markay qof walba dantiisa iyo shaqadiisa iyo wadadiisa uu si nabad u maro markii nin kasta oo dhalinyaro ah oo dadkaaga ka mid ah himiladiisa iyo hamigiisu waxa uu yahay aad ka jawaabi karto hadduu shaqo rabo hadduu waxbarasho rabo hadduu wax kororsi rabo hadduu hami kaleeto iyo adduun kale uu ku jiro uu ka heli karo meeshii uu ka heli lahaa inaad u samayso oo himiladiisa ka jawaabto markaas ayaad adiguna adduunka ku ixtiraamaa cabirada adduunka hadda laysku cabiro oo laysku qadariyo dowlad hebel waa hormartay dowlad hebelna waa dib dhacday maxay tahay ma aha qofkaasoo adduunku maray madaxweyneyaal buu la kulmay dad buu u tegey ma aha qiimuhu waxa weeye dadkaagu muxuu ku nool yahay dhaqaalahoodu muxuu yahay maxay cunaan maxay cabbaan intee gaajaysan intee saboolnimo ku jirta intee saboolnimada ka baxday dhaqaalahoodu muxuu yahay waxbarashadoodu maxay tahay caafimaadkoodu muxuu yahay caawa nin kasta oo madaxweyneyaasha Soomaaliya heer gobol heer maxaan ku qarannimo haddii madaxu hadduu xanuuno ama Dubai baa loola ordaya ama Nairobi baa loola ordaya ama Istanbul baa loola ordaya miyaanay caqligu imanayn war heer duruuftan goorma laga baxaa waa 20 sano waa 30 sano waa 40 sano goorma laga tabaystaa goorma laga fikiraa dadkaagi waa kuwan qulqulaya India iyo Hyder Abad baa loo socda Turkiga loo socda waxa loo socdaa maaragtay meel kasta laga raadinaya xabadii kliniga ahayd iyo xoogaadii caafimaadka ahayd dadkaagi taas ku nool yahay adduunkan aad u tagayso iyo dadkan aad u tagayso suudka aad gashan tahay iyo nektayga aad gashan tahay kuguma qiimeynayaan waa lagu mujaamaleynaya waa lagu soo dhawanaya protocol waa lagu siinaya laakiin qof walba qiimahaaga wuxuu ku cabirayaa dadkaaga iyo dalkaaga wuxuu ku nool yahay nabadiisu maxay tahay heshiiskiisu muxuu yahay dadkan safiirada ah ee idin fadhiya Xalane ee idin fadhiya Muqdisho ee idin fadhiya Nairobi shaqadoodu maxay tahay waxaad moodeen inay meesha qaxwo ku cabaan kafee bay ku cabaan kaliya meesha idinka shaqeeyaan idinkay xogtiina raadiyaan waxa laga madaxweynaha Soomaaliya xogta uu xamar ka hayo mid ka badan inay ka hayaan waana gudbinayaan waxaad u tagaysaa dadka aad u tagayso ma aha iyagoon warka ahayn ama warka rabto aad u sheegi karto iyagoo warka hayaad u tagaysaa marka soo ma fiicna waxaaga oo aad diyaarsatay dadkaaga oo aad isku dubaridatay howlahaaga daakhiliga ah ee dalkaaga ah cabiradaada oo aad kor u qaaday adigoo saas baa adduunka ay ku fiican tahay inaad adduunka u tagto oo adduunka la hadasho adduunku wuxuu ku ixtiraamaya waayo warka aad haysay ka hayaan marka waxaan dhihi lahaa dowladana iyo madaxweyne xasan sheekh ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku ducaynayna tawfiiqda allah ku waafaji waayo wanaagaagu iyo toosnaantaadu ummadoo dhan bay toosnaan u tahay adaa magaceedii hadda xambaarsan walaalow ilaahay subxaanahu wa tacaala meel imtixaana oo boos imtixaana buu ku dhigay ummadan isu raadi 2013 adiga oo sanad iyo bar joogana waad ogtahay inaan hortaada ka iri oo kugula taliyay muhiimadaada koowaad ha noqoto ummadan Soomaaliyeed isla raadi ummadii ma haysid nin aan dad haysan oo ummad haysan dawlad ma noqdo waa 2013 markhaatina waan u haystaa nool oo dadkii joogay baa joogay hortaada anigoo saa u taagan baan kugu iri qoraal ahaanna waa kugu iri maantana isla meeshii bay taagan tahay 10 sano ama 11 sano kadib oo mar kaleeto imtixaankii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qadaray inaad imtixaankii gasho xukunku waa imtixaan jagadu waa imtixaan xilku waa imtixaan ma aha xalwad lacantuuga ma aha waa imtixaan wey waxaan ku leeyahay dadkaaga isla raadso walaalow ummadaada xoog geli juhdi geli dadkaaga isla raad dadkan Soomaaliyeed maadadii iyo xoogii iyo cududii iyo ciidankii aad adduunka ku wajihi lahayd oo dalka ku wajiha iyaga weeye iyagii haddaadan ahayn ama ay iyagii is cunayaan ama iyagii dagaalamayaan waxa weeye adiguna waxba ma noqonaysid dowladnimaduna waxba ma noqonayso taasna waxaan dhihi lahaa waa madaxweyne waxaan kelimad dhihi lahaa dadkan social media tollaayay waxaad maqlaysaa
dad wax magarata oo aqoon laawiyaala oo juhala ah oo ummadda intii ugu liidatay u badan oo ugu caqli darnayd u badan oo intii waalnayd u badan waxay ka soo qaylinayaan caasimadaha Yurub Mareykan dalal waxay joogaan dalkoodii nidaamsaday waxa laga yaabaa qaarkood cayr inay ku nool yihiin oo sadaqaad la siiyo waxa la siiyay aqoonsi lagu soo dhaweeyay oo la magan galiyay dalkoodii waxa reer hebel hadaa reer hebelna ha dagaala war ma oran kari weydeen war adduunkii idinka tagi reer hebel wax ma tarte haday reer hebel wax tari lahayd waa hore meel naga soo saari lahayd reer hebel 40 sano ayay halkaana dhigtay aad u jeedaane war reer hebel wax ma tarte ya heshiiya oo is afgarta oo wada hadla oo isu imaada oo wixii khilaaf ah dhiig ha ku xalinina dadkiina wada hadal ku xaliya adduunku saas wuxuu xaliya adduunkan aan la joognaa haddaan joogno London haddaan joogno Frankfurt haddaan joogno Paris haddaan joogno New York iyo Minneapolis haddaan joogno iyo Toronto war adduunkan aanu la joognaa in magan galiyay ee markaan dalkeena ka soo cararnay waxaanu ku aragnay xadaarad waxaanu ku aragnay dad is afgaranaya waxaanu ku aragnay dad wax isweydiinaya waxaanu ku aragnay dad aqoon wax ku qiimeynaya waxaanu ku aragnay dad cilmi baaris wax ku qiimeynaya قارب نحتاج والله يا بالله رير بالإنان رير بالحقيقة والله يا بالله رير أف لكم أف لكم أف لكم وحرق يا دمر كقيلنا يا سوشيال ميديا الصومالي سوشيال ميديا وحي ملايين يا براها بلشده وحي ملايين ماشى قبيالته يا قرنك يا قشنك لقصو هوريو أي ملايين وحاتهين قشن قباتهين قشن قب dadkiina waxaan ka meesha kale nabigu kaleey salaam wuxuu ku tilmaamay dacwaha fa innaha muntina marka uu yiri qabyaalada dadka ku baaqa oo tollaayada ku baaqa wuxuu yiri waa xaarwalwaal yaaltiin xaarwalwaalka social media ilaahay ha soo hanuuniyo haddaanu ilaahay hanuun la maagina ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka qabto mar waxay tahay waxaan war meelaha joogtaan miyadan aqli lahayn war dadka martida u tihiin oo aad waraaqahooda iyo aqoonsiyadooda iyo guryahooda aad joogtaan miyaydinaan u jeedin siday u nool yihiin miyaydinaan u jeedin maxaa ummadina saan ugu galeysaan oo ugu horseedaysaan oo leedihiin hubka isugu qaatay idinkuna meel dibada aad joogtaanin oo aad nabad u joogtaan waxa suurma ilaahay subhanahu wa ta'ala haddii aanu hanuun idin la maagin ummadda afkiina Allah ka qabto kuwiina hadalka horinaay oo balaayada taasna waxaan leeyahay dadkan social media intay wax yaani dadka ku ummadda kala dejin lahaayeen oo ummadda dhihi lahaayeen war leedin ka tag war tolo ay laga tag qarnigii 21aad baa la marayaa leedin ka tag intay dhihi lahaayeen ya oo akhiradiina iyo adduunkiina baad aasteen ya daliilay bay wiilasha yar oo dhalinyarada ah oo ubaxa oo soo kacay oo Soomaaliyeed dhiig iyo qoryaha isugu dhiibayaan markaasay busta meesha ka kacayso oo maaragtay gaajada iyo haraadka iyo dhibaatadu ay ka dhacayso ya baabuurtan dhaxalaysatay oo ilaa iyo 90kii maaragtay reer walba uu leeyahay hubbaan haysana qaban waa baabuur dhaxalaysatay waa hub dhaxalaystay waa qoryo dhaxalaystay waa dhul dhaxalaystay waa dad dhaxalaystay dad ma waxaas caasir markaas leeyihiin orday reer hebel iska war reer hebel ka adkaan karaa ma jiro reer hebel meesha ka saari karaa ma jiro reer hebel meesha ka sharaf badan ama ka sareeya ma jiro illa bitaqwa waan la yaabay dad odayaal oo aqli iyo cilmi iyo aqoon aan ku tilmaamo oo oranaya anagu hadaan reer hebelna nama taqaaniin warseedina ay soo aqoon intaasoo boqolaal sanad isdhinac degantihiin oo wada dhehalateen oo kala guursataan oo nabadaad ku wada nool yihiin يا قال يا إسلام نلوشو ونمد نستحات قولنا نستحات يا قبياقيني هرايل قولنا نستحات بيوت دتك قرناي دتك إذن كهري إنت سوقرني أيا قرناي إذن كنا واحد تاجنتين مانت أيا واحد تاجنتين خير بالبنميش كسارنا وحي قدام بيا علماء الصوماليات حنلاقي إلهي إذا حفظيو باقي ضوء شيدين إنسان وفي عنتين دتكينا ودح جوكتان وحن ليه لا باقة وحلو قدروا ومد عقلي كتجي قبشي وباهنت قبشي وباهنت علماء إلهي سبحانه وتعالى توفيق ذا هيدن وافجيو إلهي سبحانه وتعالى حوجينا إيو
caqligiina iyo kelmadiinaba allaha xoojiye baaq keliya kifaaya ma aha dadkii waa dhex joogtaan oo hargeysaad joogtaan oo burcaad joogtaan oo laascaanaad joogtaan oo dhuusamareeb baad joogtaan gaalkacayaad joogtaan oo xamar baad joogtaan oo kismaayaad joogtaan oo gedaad joogtaan oo baydhabaad joogtaan oo meel walba waad joogtaan dalkii waad dhex joogtaan kifaayaad tihiin khayr baad ka wadaan wanaag baad ka wadaan dacwad baad ka wadaan masaajidaad ka wadaan war walaalayaalow haddii aan dowladnimo iyo wadajir iyo ummad la yaqaano meel ku nool aanay jirin kitaabna ma haraayo masaajidna ma haraayo darsina ma haraayo الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه وحو لي مركو كتابك إمامة كهالله إمامك أولا إن لا دسوها يقول صوابته محيطها هاد الدين تبان هير قليهين سيئتو كنيسا بويري سيئتو كنيسا هدي أنا بتقلي جري سيئتو كنيسا سيوحو آخر نيسا سيدتك الدين تأبر إيسا هدي أنا بتقلي جرين ما قريبا تكون سنة مركا أتو صلاة قفلة وقرديموناي oo qof yaa gadaalkaaga yimi iska ilaalinay sidee salaad khushuuc loo tukanaya goormu tukanaya ma salaatul khawf ba inagoo dhami aynu ku jireynaa 20 milyan ama 30 milyan ama 40 milyan oo Soomaali salaatul khawf ban ku wada tukanaynaa salaatul khawf waqti gaar ah leedahay iyo meel gaar ah marka meel aan nabadgelyo ka jirin meel aan dawladnimo ka jirin diinina kama jirayso oo dadnimo kama jirayso oo daryeel kama jiraayo wax walba ilaahay sabab uu yeelay inma ju'ila al-imam li yutamma bihi salaad jamaaco hal imaam baynu horgalnaa oo ku wada daba tukanaa ummadda nolosheedana waa sidaas saas darteed buu nabigu kaleey salaatu salaam marka uu dardaarmay uu yiri usiikum bitaqwa allahi wa sam'i wa ta'a الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وكان له adduunyadii iyo aakhiradii buu labada kelmadood ugu soo koobay taqwadana aakhiradoodii iyo diintoodii baa ku hagaagaysa ismaqal iyo is-adeecid iyo kala dambeyn waa dawladnimadana adduunyadoodii baa ku hagaagaysa labadii buu ku soo koobay laba kelmadood nabigu kaleey salaatu salaam fattaqu usiikum bitaqwa allahi wa sam'i wa ta'a sam'i wa ta'a adduunka inta kaliya oo dawladnimada la yiraahdo waa kala dambeyn iyo nidaam weeye kala dambeyn iyo nidaamkaas ba ay ku hogaamisa dadka oo nidaam ugu dajisa oo lagu kala leexda oo wadada markaan marayno traafiga nalka shidani nagu kala hagaya adigu waxa dhinacaan mar adiguna dhinacaan mar qof kale aan la isku dhicayn marka walaalayaalo culimooy ummadeeni idinka ka dhashay dadkan isdilaayad ka dhalateen kuwa isku dilaayo oo iimaan laawayaasha ah oo qaaqlayaasha ah oo wax magaratada ah oo dhiiga wax moodana gacantaad ka qaban kartaan isla qabiilkii baa la tihiin isla dadkii baa la tihiin isla reerkii baa la tihiin idinkama sokeeyaan idinkama xigaan maxay tahay iyagu inay dab ku guraan idinkuna idinaan gacanta qaban karin oo idinaan dhex geli karin oo idinaan dhigi karin jooji dagaalka joojiya ma la geli karo ciidankan lama dhaqaajin karo dhaha soo baxa soo kala dhex istaaga kelimada waxa lagu daro wax wanaagsan baad haysaan laakiin culimada Soomaaliyeed waxaan leeyahay دوركيني ولي ماشاس ولا قتبيا إلهي توفيق ذهنا وافجي خير كنا إلهي سبحانه وتعالى ومدن صوماليا إلهي سبحانه وتعالى نحريس كسو دجي إلهي سبحانه وتعالى نبت قليها كسو دجي دول كذا يضل كذا إلهي سبحانه وتعالى نحريس إيه نبت قليو إيه برواقو إلهي سبحانه وتعالى الله كسي على ظهنا الله كدمي ديقا مسلم كأهي أدادنا إيانا إلهي سبحانه وتعالى هاي إلهي إلهي هكدورو إلهي دباتها هكقاضو إلهي سبحانه وتعالى شرف إيه مقع إيه دول النمو إيه قوب النمو إلهي سبحانه وتعالى أمدان الصومالية أما أنت الله سيو إلهي سبحانه وتعالى قلوب توضع الله يسوسو دويو إلهي سبحانه وتعالى gacmahooda iyo xoogooda iyo awoodooda ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay sugeeyo qalbigooda ilaahay subxaanahu wa ta'aala daacadnimo iyo iimaan iyo khayr iyo khushuuc ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo geliyo dhammaantaanba ilaahay subxaanahu wa ta'aala dembigeena ha dhaafo ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwa khayrka isu sheega ee qaata ee wadadiisa ku socda ilaahay naga dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwa dhibaatada iyo xumaanta horseeda ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagama dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanaga qabto sharta wixii wada oo ummadan shar la damacsanna shartooda Allah ku celiyo wixii khayr iyo wanaag iyo wada toosan la doonana ilaahay subxaanahu wa ta'aala
waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku hanuuniyo oo ilaahay subxaanahu watacaala ku toosiyo ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteenba khayrka ilaahay subxaanahu watacaala hana tuso wadadiisana allah noo furo ilaahay hanagu hagaajiyo wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin